tababarkan ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibweysiinta dowlad goboleedka Galmudug oo gacan ka helaysa hay'adda CBD isla markaana ahaa mid looga hadlayay ka qaybgalka bogsiinta dhaawacyada maskaxeed ee soo gaara dadka ay saameeyeen colaadaha iyo dagaalada ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Tababarkan oo sidoo kale intuu socday looga hadlay taageeridda dibweysiinta xoojinta wada hadallada bulshada iyo bogsiinta dhaawacyada maskaxeed ee ku dhaca bulshada ku nool deegaanada ay ka dhaceen colaadaha iyo dagaalada ayaa waxa ka qayb galay intuu socday xubno ka tirsan bulshada qaybooda kala duwan kuwaas oo ay hormuud u yihiin waxgaradka haweenka dhalinyarada iyo qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha. tababarkan oo intuu socday looga hadlay arrimo fara badan oo ku aadan sida looga qayb qaadan karo bogsiinta dhaawacyada maskaxeed ee soo gaara dadka ay saameeyeen colaadaha iyo dagaalada ayaa waxa markii ay soo gabagaboobay qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii tababarkani ay ka warbixiyeen waxyaabihii tababarkan looga hadlay iyo waxyaabaha ay ka faa'iideen oo ah in la kaga sheekeeyo dadka maskaxiyanka ah sida aan wacyigelin lahayn ama aan u sii lahayn tababaro maskaxiyana annagoo nolol dhisay guddi 20 qof oo aan ku wacyigelinayno dadkaas xarunna nolol sii doonaan ku wacyigelino boogna deegaankeena inta badan waxa saameeyo colaadaha dadka qofna uu ka dhintaa qofna waa ka dhimay iyo kugu dhimay baa deegaankeena inta badan saameeysa waa dad isla dhasho isku deegaan oo isla degan haddana maalin kasta mataqaanaa ay dhibaatooyinka soo laabta ay ku badan yihiin soo hay'addu waxay ka qayb qaadanaysaa dhibaatadaas badan oo deegaanka soo laabta dadyooga ay saameeyaan sida qaaska waliba qofka dhaawac maskaxeed in waxaas mataqaanaa aan dadka culayskaas badan ka dejino buu ahaa ujeedkooda koowaad guddi bay noo sameysay ka kooban 21 qof oo si volunteer uga shaqeyn doona mataqaanaa in dhaawacaas ama culayskaas qofka laga qayb qaato sidoo kale waxyaabo isku shanaxa kamid ah dhaawac culayska in dadka uga dagaba sideedaba qofka in la dhiirigeliyo oo garab loo ahaado oo maalmaha uu culayska dareemayo qofkaasi laga qayb qaato waxyaabihii lagu nafisin lahaa seminarkaas ama aqoon kororsigaas intuu socday waxaan ka faa'iidnay waxyaalo fara badan oo ay kamid yihiin sida ugu fudud ee ugu sahlan ee loo dhayi karo boogahaas iyo dhibaatooyinkaas maskaxiyan ahaan u gaaray bulshada walaalaha ee ku dagaalamay gobolka Mudug waxaan aad iyo aad uga faa'iidnay sida loo xalin lahaa sidii dadkaas loogu qancin lahaa in ay ka bogsoodaan dhibaatooyinkaas sidii maaragtay bulshada joogta gobolka qaybihiisa kala duwan miyiga iyo magaaladaba loogu sameyn lahaa daaweyn seminaarkaas waxyaabaha oo aan baranaynay dhowrka bari waxa kamid ahayd sida loo xalliyo khilaafaadka iyo maaragtay meelaha ay ka jiraan konfliktiga ama dagaalada sokeeye iyo sida maaragtay dadkii ay wax soo gaareen loo maaragtay xalliyo oo maaragtay loogu aqli celiyo oo maaragtay arrimahooda loola tacaalo ayaan ka faa'iidnay ka dhimilka xanuunsan iyo meelaha dhibaatooyinka dhacdeen si loo wacyigelin lahaa ama lagu sameyn lahaa xarumo waxa weeye waa lagu daaweeyo dhibaatooyinkii dadka gaaray sidii qalbiga looga dhayi lahaa ama wax loogu sameyn lahaa aad ayay hay'addu u maadsan tahay iyo wasaaradduba anigu waxaan ka mid ahay guddiga ama wacyigeliyanta loo xil saaray inay arrintaas ka shaqeeyaan oo 20 qof tiimkaas oo ah waxaan ka shaqeyn doonaa sida hay'addu iyo wasaaraddu ay u qeexeen sida loogu shaqeyn doono ayaan anagu ugu shaqeyn doonaa. tababarkan ayaa sidoo kale intuu socday lagu dhisay guddi ka kooban 22 xubnood kuwaasi oo ka qayb qaadan doona ka shaqeynta bogsiinta dhaawacyada maskaxeed ee ku dhaca dadka ku nool deegaanada ay ka dhaceen colaadaha iyo dagaalada. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.